madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa boqolaal shacab ah kula tukaday masaajid ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo salaada Ciid al-Adha. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku dheeraaday ahamiyadda maalmahan ay leeyihiin, isagoona si gaar ah bulshada Gaalkacyo ugu baaqay in ay eebba ka baryaan in nabadda iyo xasiloonida gobolka Mudug ay noqoto mid xasiloon. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa bulshada faray in ay iska ilaaliyaan waxyaalaha amnigooda liddiga ku ah. maanta oo kaleeto waa in la isbaro wanaagga iyo in ilaahay loo dhawaado rabbi la baryo. waxaan magaalada Gaalkacyo ilaahay si gaar ugu baryanay in ammaan waasica siiyo dadkeedana waxaan u rajaynayaa inay noqdaan dad ammaankooda iyo istiqraarkooda ka shaqeeyo si cibaadadooda u sugnaato. muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka jira dilan aan runtii meelna ka soo gelin insaaniyadda iyo diinta oo dad faajiriin ay sameynayeen oo kaliftay in masaajidadii lagu tukan waayo ummadda ay si wanaagsan ku noolaan weyso. dembiga dadka waxaa geysanaya keliya male dadka ku noolna qeybka kala aanayn hadday gacanta ka dhalan waayaan. marka waxaan ilaahay ku rajaynayaa dadka reer Gaalkacyo inuu tuso inay ammaankooda ka shaqeeyaan oo wanaagooda ka shaqeeyaan dhammaan dadka Soomaaliya meel kasta ay joogaan si ay u helaan nolol degan oo ilaahay si saxa uga caabudaan. haddii kaleeto qof baqaya cibaadadiisu waxay gelaysaa khatar. marka insha allah maanta oo kaleeto dadka masaakiinta in loo naxariisto la qoodiyo, dadku iscafiyaan, ummadda isbooqdaan, ehelka iyo qaraabadu la iska farxiyo iyo ciyaalada. waxaan isu rajaynayaa dhammaanteen inuu ilaahay noo naxariisto cibaadada oo naga aqbalo. ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa in aan ilaahay ka baryayna caafimaadka iyo cibaadada inuu nagu sugo.